waxaan ka hadlaynaa shirkaygan jaraa'id ciyaartooyda kubadda afarta sano la leeyahay waa lagu ganaaxay arinta ma ogolin haddaan uqaasha reeb tog dheernahay arinta dadku way isku dhacaan gobolada kale bada khilaafku waa ka yimaada ujeedada afarta sano loo leeyahay waan ka hadlaynaa ma ogolin haddaan uqaasha reeb tog dheer arinta ambil baan ka leenay aqbali mayno haddii wasiirka ha laga noqdo arinta ma aqbalayno afarta sanadood ee Burco la ganaaxay mana yeelayno haddii nalaga deyn waayana mudaharaadaanu ka samaynayna runtaanu idin sheegaynaa afar sanadood ma qaadi karno halkan anagoo ah dhammaan uqaashii gobolka Togdheer waxaanu baaq dheer u diraynaa wasiirka ciyaaraha ayaanu u diraynaa oo aanu leenahay dhalinyarada reer Burco ee afarta sano lagu ganaaxay ma qaadi karaan afarta sano waana ku xaq dar weeyaan waxaanu kala hadlaynaa wasiirka ciyaaraha isaguma maxkamadba ma cadaaladba afarta sanood arday khaldamay oo ciyaartooy ama laga gardaran yahay talaabada inta la xaqu ka keenay ee uu leeyahay afarta sanood ma ka jeedo gobolka Togdheer xaqu ujeedada ka keenay gudidiisa waxba weydiin mayna anagu laba qodob oo isugu daray gobolka Togdheer horena ugu aqbal dib loo aqbali maayo afar cashaad diiwaangelintu ka soconaysa cidina ma taalo ma ogolin mana ogolin afar sanadood ayaa ciyaartooyda la xukumay dhalinyaradan gobolka Togdheer ee la yiri afar sanadood baa lagu ganaaxay taa raali kama nihin waa in arinta hoos loo eegaa oo magaranaysaa si waxay ahayd in magaranaysaa dhalinyarada dhaqan celin lagu sameeyo laakiin dhalinyaradii aanu kaga magaranaysaa hawloonaynay inay magaranaysaa kubadda ku mashquulaan haddii ay la yidhaaho waa afar sanadood baa la joojiyay maxamar bay qabanayaan kubadda cagta Soomaaliya bay ku socotaa waxa kale ku socotaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ku socotaa ee Soomaaliland shaqo kasta cid baa leh wasiir saacad ma aanan qaadanin afar sanadood in la ganaaxo gobolka Togdheer kubadda laga ganaaxo khaladka anaga naga dhacay waa saxayna uqaasha saxaysa gobolka saxaya ma diidanin khaladku uu dhacaa waxaan leenahay xilliga kubadda cagtu dub ugu noqdo arinta dub ugu noqdo oo ha ka faarantago waxaan inta ku darayaa diiwaangelinta ku darayaa dadkii la diiwaangeliyay wadanka ma joogaan ayaa diiwaangelinay sababta ayaa la diiwaangelinaya dub hana loogu dhigo gobolada hana lagu dambaysiyo dadkaasi banaano iyo way dhaafeen iyo laascanad way dhaafeen marka waxa weeye maniman xadkii Soomaaliland joogin oo garow waag yaala iyo Ethiopia ayaa loo qabay deegaantii baa geysay roobkii ka daayay xarago kuma tagin waa in dub loo dhigaa afka gobolka Togdheer uqaasha ku hadlaya hadal la igaba horeeyay yaa waxaan ku taageersanahay gobolka ciyaartooyda gobolka Togdheer ee dhalinyarada iyagu khaldamay isku khaldamay wasiirka ciyaaraha iyo xiriirka golayaasha ciyaaraha waxaan leenahay ganaaxa ma qaadi karo afarta sanadooda waa wixii meesha ka dhacay wax ka fog oo ka culus weey si shishaan u qoraansanayna horena ciyaartii xigtayna waxaana lagu xukumay in goolka yaga sidaas uu loogu laado 3 dhibcood lagu helo labada ridaba reerka yaga ma isu wada raacday gobolka Togdheer hadaanu nahay wixii naga khaldan waanu saxaynaa wixii laakiin aanu xaq u leenahayna waanu ka hadlaynaa arinta iyada ma ogolin diiwaangelinta gobolka ee ataan waa afar cisho waa xaaraan dadka iyaga waxaanu ku lagu hayaamay aanu nahay uqaasha gobolka Togdheer waxaanu ka hadlaynaa ciyaalkii maalintii dhaweyd kubadda ee afarta sanadood laga mamnuucay aad baan uga xunahay kolley qaladku uu dhacaa ibn aadan baynu nahay waana caruur waxaanu doonaynaa wixii ay qusayso inta ay qusayso in loo khafiifiyo ama nalaga daayo loo dhaafo sallallahu alayhi wasallam dhammaan haddaanu nahay uqaashii gobolka Togdheer iyo waxgaradkii waxaan halkan baaq uga diraynaa diidma ah ama cabasho ah wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu leenahay marka hore haddii qalad waa dhacaa haddii meel la isugu keeno dhalinyaro qaladku waa dhacaa
qaladka marka hore haddana waqaashinahay booliis war ka bixin cid kasta oo ku dhacay xukunka 4 sanadooda dhalinyaradu waxaynu ka ilaalinaynaa tahdiibta waxaynu ka ilaalinaynaa muqaddaraadka waxaynu ka ilaalinaynaa inay qoriga qaataan oo siyaabo kale dhalinyarnimadooda adeegsadaan 4 sanadood ma qaadan karayno waxaan isleenahay waa la faahfaahiyay waxaan leenahay arrinta duuha looga noqdo si aanay dhalinyaradu u moraal jabin ama u tahdiibin ama muqaddaraadka iyo waxyaabo kale aanay u gelin waxaan leenahay arrinta duuha looga noqdo aad iyo aad baa mahadsantihiin wasaaradda qaladku waa dhacay dulqaad baa looga baahan yahay meesha dhalinyaro u tihiin wasaaraddii waa durbana waa laga reestay inta ciyaaru soconayeen waa ogtihiinoo siyaasaddii waa laga nastay ciyaaraha baa imika laga sheekaynaya labada qodob waxa weeye diiwaangelintii Burco waa laga guuray dadku wuxuu tegey gorgor gaashaamo laandheer ilaa dhumay ninkii garanaya waxaanu ka codsanaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guddiga komishinka in dibna loogu dhigo loogu dambaysiiyo dad Burco maanta kaar ka qaadanaya ma jiraan dadku way ka guureen qodobka kale ee ciyaaraha waxaan leenahay wasiirku xukunka uu ku tacadiyay waxaan leenahay wasiirka ciyaaraha iyo dhalinyaradu xukunka 4 sano ah ha ka noqdo ha dabciyo dhalinyaradu waxa weeye kubadaas mashquul ku tahay tahriibtaan kaga ilaalinaynaa waxaan kaga ilaalinaynaa xamar inay qabtaan haddii la caburiyo ama xukunka ka noqon waayo dadku waa dhalinyaradu waa ka yaacayaan waxaan leenahay xukunka ha la fududeeyo codsi weeye salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh soo jeedinaya xukuumadda iyo cidda ay qusayso baaqani 3 eray weeyaan mid waxa weeyaan waa ganaaxa ku dhacay dhalinyarada oo aanu markaa aanu qaadan weynay booliis waa ka bixinayna wixii khaladaada waana saxaynaa laakiin ganaaxa intaa in leeg hadaan nahay uqaashi iyo waxgaradkii gobolka Togdheer maanaan qaadan waxaanu leenahay wasiirka ciyaaraha mudane iyo guddidaaduba arrinka ka noqdaan taasi waa eray weeyaan erayga labaad doorashada gobolkan oo baaxad badan 4 casho kuma filna waxa weeyaan in la isu leekaysiiyana maaha gobolada waxaanu leenahay way yar tahay 4 casho ha loo kordhiyo waxaanu leenahay oo kale dubha loogu dhigo gobolkii waa laga guuray oo dadkii waa maran yahay ee dubha loogu dhigo baanu leenahay xukuumadda iyo madaxweynaha iyo cid kasta ay qusayso hay'adka qaranka ayaanu baaqa u soo jeedinaynaa aad iyo aad baanan u salaameynaa